إنساد إتري آيفون إيجاد أنوريها يو والولاع الدلي ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dowladda ku-meelgaarka ee Soomaaliya Xuseen Maxamed Caydiid oo maanta ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xadka la baabi'in doono dadka Soomaalida iyo Ethiopiankuna ay hal baasaboor wada qaadan doonaan. xuduud 2 kilomitir ayaan isla leenahay xuduudda inaan baabi'inaa rabnaa ayay walaalanahay waa noo dhahay mid hal baasaboor hal maxalli yiraahdaa ciidan security iyo hal maxalli yiraahdaa dhaqaale inaan soo sanarno Yurub way soo sitay 26 waddan oo dagaalkii koowaad dagaalamay dagaalkii labaad dagaalamay haddana France iyo Germany aduunka askari maamulaya walaalihii ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda ku-meelgaarka Xuseen Maxamed Caydiid ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan in la baabi'iyo xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxaysa isla markaasna la mideeyo labada dal wuxuu hadalkaasi ka jeediyay maanta Xuseen Caydiid magaalada Muqdisho waa kan Axmed Ida Waqaca oo warkan Muqdisho ka soo diray kulankani waxa uu ka dhacay filla Soomaaliya oo ah xaruntii hore ee madaxtooyada Soomaaliya isagoo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha gudaha halkaasi kula hadlay oday dhaqameedyo ka socda qaar ka mid ah beelaha Soomaalida ujeedada kulankaasi ayaa ahayd sidii ay hogaamiyaasha dhaqanku ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo xasilinta dalka gaar ahaan caasimadda injineer Xuseen Maxamed Faarax Caydiid wasiirka arrimaha guduhu waxa uu ku dhiirigeliyay hogaamiyaasha dhaqanka inay doorkooda ka qaataan xaaladda Soomaaliya isagoo intaas raaciyay inay dowladda Itoobiya ay joogaan 2 milyan oo qaxooti ah oo isla markaasna ra'iisul wasaaraha Itoobiya Milla Zanaawi uu Soomaalida ku leeyahay abaal maguraan ah waxa uu yiri waxa abaalkaasi qiri doona dhallaanka Soomaaliya isagoo intaas raaciyay inay wabiyada Jubba iyo Shabeelle ay ka yimaadaan Itoobiya ayna leeyihiin xuduud dheer labada dal Caydiid waxa uu sheegay inay xuduudaasi tahay 2,000 oo kiiloomitir isla markaasna ay tiri doonaan marusii hadlayana waxa uu yiri 2 milyan oo qaxootigiina boqolkiiba 60 Itoobiya jooga baasaboorka Itoobiya qaataan guriga Itoobiya ku noolyihiin adduunka ku aadaan waa ka soo laabtaan xoolo dhaqatada waa galaan waa ka soo baxaan xuduud 2 kilomitir ayaan isla leenahay xuduudda inaan baabi'inaa rabnaa ayay walaalanahay waa noo dhahay mid hal baasaboor hal maxalli yiraahdaa ciidan security iyo hal maxalli yiraahdaa dhaqaale inaan soo sanarno Yurub way soo sitay 26 waddan oo dagaalkii koowaad dagaalamay dagaalkii labaad dagaalamay haddana France iyo Germany aduunka askari maamulaya walaalihii wasiirka arrimaha gudaha dowladda ku-meelgaarka ah Soomaaliya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeen ma aanu soo hadal qaadin dagaaladii dhexmaray labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya Xuseen Caydiid intii aanu ku biirin dowladda federaalka ee uu hogaamin jiray ururkii SNA waxa uu ahaa hogaamiye kooxeedkii ugu horeeyay oo ay Itoobiya awoodiisa watay sanadkii 1999 isagoo xilligaasi ay maleeshiyaadkiisu ku sugnaayeen magaalada Baydhabo والولاع الدلي إنساد إتري أروس أنتقو درعي سدنا أنا أنك قبي